sharmaarka xuseen qaybta magaalada muqdisho mar kale waxaan idin leenahay waqti wanaagsan madaxda kelmadooda ayaynu kusii durkeena oo aynu gaarina markan waxaan jecelahay 5 daqiiqo in markaasi aynu hortiina keeno saaxiibo kamid ah bahda majaajilistayaasha ama bahda sheekada oo halkan inoogu soo bandhigi doono waa 5 daqiiqo wax ku eg dabadeed madaxda ayaan kelmadaha siin doonaa oo aynu mar kale ugu mahadcelinayna waqtigooda qaaliga ah waxaan soo dhaweynayaa saaxiibada madadaalada iyo daqiiqadaha 5 daqiiqo inay inoogu soo koobaan soo dhawaada yaabka ha ahaadee anigu waxaa weriyey igu daro luqunta ii gelsho waa yaaba nin walba wuxuu leeyahay ninkaas waa saal waa inta raadkayga igulaad joogaan laakiin haddaana erib tirin halkii weriyaa oo anigu turuxay ii keenaan toos godka u geyni har iima yaalaan ku yidhi waana kala barahay ninkii saaxiibkay ahaa waa inaan wacaa ayeebo حاضر سلامتي قالوا وعليكم السلام وعليكم السلام اي ولا ساده وفعنا ولا كيو كبني بلد كان اول وحمو يا حنتي دوام الله ابو حدوتها اي شيء بيشك ايمانتي ونحت الدواء يعني صاحب كم يعني صاحب الوطن اي يا حمار ضبطك وعملوا مركي يرين وقيدوا انت الماك عندي جيري والله صعب هذا سؤال انا ضبط اسكت عقر في ريق وما جيتو والله صوفت سما ابو اوارا صعبت على شيء مرك على وشال وفوقه انا كنت تو باقا وها وفكر بها نيهو وريال انت فكر اريد كستون سوبيو من والبون تركو الى هوريك فافايا aniyo waxaan rabaa weriyaashaas ee anigu dabagale niyahow inaad iga qabato dabar jartaan rabaa لا لا الا الله محمد maxaan ku qabahaa adare waa iga horleexee dhinaci loo bannaan u dire adigu wala beesa ma rabti beesaan ku siiha aad ka yaabto guriga arkin aadna ku riyo xataa bees waa rabaa laakiin inay tusisid mukooreeso beesada waa tan ma aragtido بقول دار واحد حد بلاد هلا استجواء انت صور ربطها كوركور نعرف حد من حد بلاد اني هو وحان كهربا عد الله لا عدي انا بابكيga soo gasha ee anigu lugtayda ku soo istaagay waa ku soo sheega adale tigeysid inaad iga qabato aad adigu u dhamayso beesa ana ku soo Allah dhamaysta محكمة مجرمية حتى بدأ أسأل بدي غياشة إيه دورياش واتريد مكان يراني السلام عليكم وعليكم السلام وفوسو الدلا هيا لكن الدل مدلاي دل مدلاي اربعت وقلو فكر على كيس يا هو الوير ودي قرايه 14 كل فا انا بقى 4 كده تسمع وراني هاي اللي يخرسك يا ربا اي ورك ودان ay anigu armahayga ganacsiga iyo siyaasadayga iyo badhayga soo galaan aad dhanka hoose u dirto markii aan arkam aragtay nin waalana iska dhiga nin waala iska dhiga nin dhamoon shaqo u dirsadaate adigu ma laxaata shaqadii dirsati sidaad ma ku soo qortaa sideeda u qabee sacuri calul xagga xagga batiye adoo san u neefsan ka sheegto waa maalinka koonfur dhawila iskaraal naqo dabaayahow waxaan kaa rabaa arrinkaasaan kuu dirsada inaad ii qabato teeda kale idaacadaha min kasta dhagaysto oo rikoor ku yaala anigu jaamacka cid allaala iyo ciddii anigu warkayga iga sheegtay ii soo gudbi halka waraad ii keentana beesaan ku ogola asoo qasnada bas بس هذا ما قسمه من بيله بس أدي مقلة أبغى ويا بسو بس فيها وهبارية أدوك فيري
إلى شقي هاي ديار كان أنا مشغولة أنا مشغولة إلى أمكنا بسوى السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي دغيستيال waxaa ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ugu talagalnay inaan ka hadalno dhibaatada loo geysto saxafiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa ka cabanaya in loo geysto tacdiyo iyo in laga boobo dhulkooda isla markaana ay ka sheegteen shakhsi ka mid ah shakhsiyaadka ugu waaweyn xagga dhanka ganacsiga in lagu magacaabo manahe ayaa ku soo canbaxay inuu dhibaato u geysto saxafiyiinta iyo bulshada Soomaaliyeed isagoo dhaca hantidooda isla markaana haddii isku dayo inay ka hadlaan waa tahay dhegeystayaal shakhsigan ayaa si weyn loogu caawinayay xilliyadii ugu dambeeyey hase yeeshee ilaa iyo hadda ma jiro shakhsi amaba cid ka hadasha dhibaatada loo geysta shacabka Soomaaliyeed ku dhaqan magaalada Muqdisho barnaamijkan ayaa ah barnaamij aan si gaar ah uga qaadqaadini doono shakhsigan iyo waxyaabaha markaasi uu ku caanka yahay manaxe ayaa waqtigii ugu dambeeyey waxa uu sii xoojiyey dhibaatada ku haya shacabka Soomaaliyeed dhegeystayaal idinkana waxaad ka soo hadli kartiin aragtidiina gaaban amaba aragtidiina aad ku soo hadli kartiin idinka oo ku soo aragtigiyo kara fariisidaha gaaban dhegeystayaal دلستان يوضع وجهه وإن شاء الله يرتي سدا شخصيا كسر عن بحيون ومدى بغاتيه يستمر كان الواقع بجوزة مهمة كسر بدل الاستياش والفروهين دلستان يوضع وجهه مدعي بها حسن على آدم وعن جوزتك مدى دائما شخصيا وإن شاء الله يرتي سدا وكما صنت هذه سواء كان وحن كبار لا يبيه إن دولة الصومالية يحتضبطه شخصيا ليلة ومنحة وتهيئ استيال وحا نكسي جوجرنا دولة برامجك وكذا وليسان تيفيك ليسلا وحا نكا كسو جوجرين برامج كيكاكا وعنكوكا دانيجي شخصيا مشاهده إنو سيوه ربواتيو بوشوه هيك وحبتا وسميو سعفين تسنوكا نوعي جبريا هاتيه الشيغان وحيواها ودكفروا dhegeystayaal waxaan idin leeyahay waa ku mahadsantihiin daawashadii iyo dhegeysigiina quruxda badan aniga barnaamijkan waxaa idin soo saaray anigoo Soomaaliya isla markaana waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan صاحبكني وعواي ورا لو شاغلو دردل يقول ورا جرني ورا جرو اسكو دحدرا كم الله السلام عليكم صاحب كيم وإمام هي مورد إيه يا شيخ وفي عمل فوجري هي يا اتفاق إيمان متفيا ودا ولا متفي هي إيش وقفكاس آخره وحلونا رباعي لا إله إلا الله كنت كاي ويبو عند جنكيجا ما جرتو بيسا جنكيجا بيسا إجريبه نيكا أو أنا اتفاقه حلو يرنيكاس نيكا دكا سارة ديالة قرع ستنوين وبالواي مدرعين تاسسكي من وبالواي أنا ما أتحدث دكا حاكا لما تذكر قلب سوغا والله يا واي وسوغا هاي ما تذكر قلب ما أرجع أنا ذكر الله بيسا كسيها وسوغا دمسو أفجر بس ها هل تكرر منطقة حافظة دقيقة إلا منطقة وسوغا أسا ها ميسانا بزوغا جكا وفديسا ما يلم بركيسي سي حتى الوعى ما يا مهجبين ها ووعى وحان ليه هذا دنبا إذا عد الصوفر يسطو أو فتفل warkaad anigu igu wada iyo turxeedaad ii keentay insaanku tuma tuuraankaasoo saaraha ugudka لا إله إلا الله أنا داعي بس كدافته dhaaf adigu waabsigaaga waa jilcanyahaykeega adage lambarkiisiisii lambarkiisa haddaana weriye kasto warkaan anigu raba una sheegin xagga dambow ii sheeg lambarkiisa dhaaf haddowna dhanka adeer u fakan beenan u sheegay haye ow tiftif oo weriye maa la dhihi jiray saata waa ganacsada madamqadaniyahow arrinta aad igu wado iyo tiftifnimada iyo raadkaad ila raacda mayga dhaafe
mise dhimasho dalbe waa kuu sheegay arrintayda ha soo faragashan haddii kale ilmahad dhasha iyo ummaddaad u adeegay aada leedahay waa ka dhexbaxe anigu jixinjix iyo tiiraade iyo murugolahaan qoramale min fadlan warkaasi yaa shacabkaan u shaqeeyaa oon u taagana kay haddou shacab wax ku qabaayo muggaan kaa hor imaado feeraha kaa ducaay shacab ay kaa alishaan qandha falxumo badan ku qaado warku tiro badan iska waayahay waa isla joognaa magaaladan ku wada joognaa hadda masuu dila anaa u tagayo kaasi iska dhaaf waabsigo iikeey aan tusahay iska la-aan marka bismillaahi waladan saaxiibtii waa lagu soo jeeda waa ku dilaa saana ku yeelaa waa ku xera oo maxaan ka helay bulshadaan u adeega aniga nin saxafi baan nahay saxaafadda iyo saxafiga mar walba waxay u taagan yihiin inay u adeegaan bulshada waa inaan wacaa saaxiibkayga iqbaal waa inaan u sheegaa ninkan inuu isoo wacay ganacsadihii islamarkaana weli waa ku dilaa weyla iqbaal waa inaan hadda wargeliya saaxiibkayga si uu markaasi asiga ila taliyo oo iwa seeta iqbaal waa fiigsanaheed niyahow waa fiigsana waxaa waaye dhinac isoo wacay maxaa kugu dhacay marka wuxuu yiri waa nin horteed ganacsado waaye maba shaqo ma ku sii shaqay ma siinin waa ku dilaa wada oo ku dilaa haa arrimaha xaafadda laga soo wacay ciyaar xaafadda ay kugu baashaadaya maalintii ugu dambeysay barnaamij aan baahiyey baan 3 beri ka hor haa barnaamij waxaan ku sheegay in dabcan ninkan uu yahay nin markaasi usoo istaagay inuu umada dilo wariyaalka inuu gacanta u geysto u haa dilo wariyaalkii ma aha xitaa shacabka maantadooda dhaca dirayaashii uu maxaa dhahay ka xooga adiga xogtiisa oo dhan aad deysay xogtiisaan deeyey marka qofka dadka soo wacay uusan asaga ahayn oo qof ciyaar xaafadda uu kugu baashaadaya maya dadkaan usii iftiimay nambarkiisa muhtayo asaga yahay nambarkiisa magaciisa ku sheeg waa ninkan magaciisa manaxe inuu yahaan jeclahay oo wilku si weyn ugu sheegay wuxuu yihi haddaad afraarey ka bixi weysid meeshii loo badnaan kuu diraa hadduu asaga wuxuu dilay ilaahina wuxuu dilay wallahi waa wasan ogeyn hal weri hadduu dilo haa. boqol weri ay dhalanayaan hay boqol weri hadduu dilana haa. 1 weri ay dhalanayaan si wanaagsan ummad oo dhan ilaahay uu muu baabi'in karaa maya waa abshir rabto maanta ma taqaanaa ya waa labada nufeedka labada nofeer waana maalintii ladeeyay xadgudubka in loo istaago oo loo geysanayo weriyaalka aadiya waxba kaama qaadayo qofkaas mabda'aagana asaga ha u bedeli weliba waxaan ku hayaa ninkaas aad sheegaysa haa. iyo kuwa kaleba in la qabtay in la qortay waaba la qabtayba ilaahay ku saddex daa beri ka hor maku digin asaga haa xabsiyo ku jiraa igari gacanta qofkaas iyo wax lamid aan cid wax kaa qaadaysa waa u daawis waa u waxaas daawis ka wareer la-aabo hawsha haddana gudo laakiin waxaa wanaagsan ninkaan dad badan dilay qof lamid aan maba soo bixi doonaba marka waxaan jeclaan lahaa mataqaana waxaan jeclaan lahaa ninkan intuusan ku dilin ka hor dad badan u dilay inaan la soo gebigiisa laga taquuso koley haddana waxaa loo taagan yahay dhammaan wariyaalkii la dilay xadgudubkii loo geystay aa loo taagan yahay maanta uu ku aadan yahay aadiya cid wax kaa qaadaysa malaha asagiina xabsiga u dhex jiifaa haa. weliba tiftirkiisa xataa lama dhaafin macal baabuurkiisa jaajuuskiisa xataa horaa loo sii waday haa. wadnaha isfurinin aha jabigaaga daji Aamin. hawshaada wado wariyaha bulshadaas lagu adeegaa si wanaagsan bulshada uu indhow u yahay bulshada uu af u yahay aadiya asaga maal kuma helo magacna kuma raadsho Si fiican. yani inuu ummadaas u adeego uu u taagan yahay aadiya waxba ha ka gaabinin waxaan ku dhihi lahaa ha ka gaabinin ninkaas asaga u xabsisiyo waa maasanta mar walba saamaxaga waa sababta ku wacay saaxiib waxaa waaye waa nolonano adigana geesnimada ku ogaa ana nolonayo alla dila dhinta waa maasanta waa yaabanahay weriyaashii oo dhammaa ii kacay hadda halkayga wuxuu maraa inaan xabsi dhex jiifo ilqaha igu cuno dhilmaanyada igu cunta ayakiioo dhamma iyo ii istaageen gurigayga musqusha iridda weriyaala taagan oo konton gaaraya hay abtalada igu dhigaayaan interkanetka oo dhamma igu faafsheen raadkayga dul yarow ka galaan waayo inay xabsiga i keenaan ay igu kalifeen waxaan weriye dhahaa dhihi jira waa dhilmaanyo yar waaye iska dharbaaxe ay igu noqdeen dhulaan la goy karin iyo biraan la jabi karin hadda adiga naga tagta dhaggan furxa ku qaada
أنا مقاوليها أنا مرتلقة حتى قوالي ويسوت كاري أنا مع وانيا أنا بلا كل من هاي هذا واحد واحد إنها بس سنة ريال دولار وريال بدن واحد تعديني واحد بدن الماء دلنا أبو مواقع دقني حيانا نيو وريه فربلنا ناسنا يعني أنا ونحصنا ما هتذكري هلا أول ساتكي هذه اللي ما ولا ساتكي يا حمد أنت العمدة ما نحس كري واسكو أويا أرقي هذا فيني جلجلة عسل دافع waxaan ku sheegaa wariyaalka idaacadaha wariyaalka telefishinada dhanana raasooyin والله والمسؤول اللي دايد ممكن هذا كسو بعد أو حتى نتقنتم وريا هول أنتس هي الطبقة كاس قرماي كانوا ورياش وقتلي جري وأنا لها صعد جري لأنه حكومة جري أنا خبر جري هذا بور اللور بور وديدو ودماغ هذا مركبه بور هذا اللور بور يقول دحريت أنا ما بحا ودماغ زي كتاعه حتى إيه بور لقوا ملايين لقوا ما كبر لا أتوقع دباتو كيسه انتاسا أنا بقول شيء كهذا انت تصبح انت واحد مسكملية حتى أنا بقول شيء كهذا وحواي لا نشيران دي بينا وطن كنا ويسك تجي لا ولا نفعل وين هذه هذيك بيسات دي قرب تاورية دمبور كيس هذا دي كنتو جوب كان ودفاع جوب كان ورياش وصلت كان واحد كان واصل تستن واصل كان عدا يدافع ربان ملك محمد ديق عادي برا في يورا وضرب حوير يا حوير بود اسمه بود ما على قابلتهم نقول ذاتك مو طمع يا ذاتك مو لا براءة لا الا الله واتم بيسا بقى وريه بود وتوا ورا روك هذا ما اللي كتب فكان واي دلو ما كنتني علينا ما حتى كدي وريه وركيس من هذيك انت هذا ورك كوكو دفا تعدي كان ورياش وجستيون ان انت بدلون ان لا ينا هاي عدالة وحاول تساعفش هاي عفوا من وهجاد رواية سير أنت إنه كجت لابنا وكان لسه تعديل سعوديين الصومالية دلوقتي وحنا قصوا بيري ونلتشوا إسلام كان بوجاديننا اسمها warfaafinta madaxtooyada Cabdinuur oo nala joogo oo aan kelmadiisa siin doono markan dhinacii madaxda ayaan u soo weecanayaa daqiiqadaha inoo haray ayaynu rajaynaynaa si wanaagsan inay noogu soo idlaadaan waxaan u yeerayaa codbaayaha waayo joog hore dadku waxay yiraahdaan waayaha adduunka iyo taariikhda ka weyn wax loo wakiishaa qofka waayo aragga ah waxaan codbaayaha ku soo dhaweynayaa wasiir hore nin isboorti waayo joog soo ahaa haddana ah gudoomiye ku-xigeenka tala soo jeedinta Soomaaliyeed mudane Siciid Jaamac